deegaanka halbixisay oo ka tirsan degmada Oog ee gobolka Saraar waxa ku yaala ceel biyoodka ugu weyn deegaanada gobolka Saraar ayaa waxa soo gaaray boqolaal qoys oo dadka reer guraaga ee abaaruhu saameeyeen iyagoo ka soo hayaamay deegaanadii ay deganayeen isla markaana biyo la'aan baahsan ka jirtay iyagoo sheegay inaanay jirin kaalmooyin la soo gaarsiiyay oo ka yimi gudida abaaraha ee heer qaran iyagoo ka hadlaya hadaladoodii waxa kamid ah haydkii tuulada Cismaan Jaamac Nuur xog wixii aan hayo ayaan ka warramaya waxa weeye dad badan oo ilaa 150 ilaa 160 oo maata ah oo caydoobay ayaana dib yimi dadkaasi eediyadanu ku caydoobay oo ka soo uruura ceelka biyaha la isugu yimi anagu meeshaanu deganeen oo dad awalba iska xoogaa aan raganimeysaneen baanu ahayn itaalka yaga biyo keen raashina keen uma aanaa yaraysan waxayageen waxba ka socon waayay u baahannahay in wax degdeg ah la soo gaaro xukuumadda Soomaaliland ayna danayso waqti kasta waqtiyada kamid ah ay doorashooyin jiraan halka waxa noogu timaada ilaa 5 sanduuq ayaa halka noogu yimaada oo markay Soomaaliland u dan naga leedahay aad iyo aad baan ugu ololaynaayo aan ugu kacna iminka waxaan u baahannahay maanta wixii waxna tari lahaa dadka wax tari lahaa ee wuxuu tari lahaa waxa weeyaan dadka maanta tabaaruhu haysto ee abaartu haysto weeyaan waxa weeyaan maanta Soomaaliland wuxuu qabato oo wuxuu soo tarto maatada halka ku bislaanaysa ee ku maranaysa aan wax alaale waxay haysataa jirin ee caruur leh ee curyaan leh ee umula leh ee ciroole curyaana leh wax walba waanu leenahay dhibaato weyn baan haysataa hadii xukmaayay xukuumadda Soomaaliland waxay dawladda noo aado iyo waxay hadaba kureeyagu darafteeda wax nooga keenaanba bilood in ku dhow baan joogay waxba ma ayna arag waxba aniga nooma imanay xoolihii waxaan haysanaa anigu wax yar muqdar iyo waxay ka marteen mid walba leeyihiin saddex neef aan xiradeeda jooga wax alaala waxa duuye sheegta iyo afar halaad caata ay ka waayay waan gartay wax amalaha kale aan hayana ma jirto ay waayay kula kulnayaduna hooyo iyaduna adin la oo curyaana adikeedu waa kan iyaduna dadka xoolo ay ka baxeen ilmaha yar sad la socotaan sida ayada ilmaha yar haysta noo sheegtay ilmaha yar waa 2 jir waxaan sida uu gala waa nafaqa darro wadadka xoolo ay ka baxeen Simbal Dahab telefishinka caalamiga Universal TV magaalada Caynabo